gudoomiyaha degmada Garbaharey ee gobolka Nuur Maxamuud Buraale oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa waxa uu ka warbixiyay dad gaaraya 120 ruux oo gaaray magaalada Garbaharey kuwa isaga soo barakacay deegaanka Elcadde iyo deegaano u dhow. Gudoomiyaha ayaa sheegay in markaas dadka halkaas ay ku soo dhaweeyeen sidoo kalena dib u dejin ay u sameeyeen qaar ka mid ah sidoo kale dad ku xanniibay Elcaddana ay dadaalkooda ku jiraan sidii ay ku geeni lahaayeen Garbaharey. Gudoomiyaha waxa uu sheegay in hadda la wado gurmadyo degdeg ah oo markaas dadka lagu samata bixinayo colaadda saameyn ay ku yeelatay iyo dhibaatada ka dhacday deegaanka Elcadde in hadda ay wadaan gurmadyo gaar ah oo dadkaasi lagu gurmanayo sidoo kalena dadka Garbaharey soo gaaray hadda intooda badan xaaladooda nololeed ay tahay mid wanaagsan. anagu waxaan u sameynay marka hore koowaad gurmad aanu kaga hortegaynay maadaama dadku aysan arigu ay iska kala xirnayd baabuurta dadka shacabka ay lahaayeen ayaanu ku ambabixinay halkaas dadka shacabka habaa soo qaaday dadka shacabka habaa gurmad sameeyey qaarkana qoys baa la kor saaray qof magaaladu qoys baa la kor saaray nin walba faamilkiisa dadku way soo wada dhasheen waa isku dad weeye marka waxaan u qabanay inaanu soo dhaweyn u sameyno laakiin ilaa hadda gurmad nolol oo aan ka ahayn waxay ganacsatadayadu ay iska aruuriyeen oo aan soo gaarsiinay matila. sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in xaalad caafimaad darro ay soo ridatay qaar ka mid ah dadka isaga soo barakacay deegaanka Elcadde soona gaaray magaalada Garbaharey waqtigaana ay markaas u fidinayaan gurmad dhinaca caafimaadka. waxa uu sheegay gudoomiyaha in sidoo kale loo baahan yahay in dadka hay'adaha madka ah ay dadkaas u fidiyaan aadanimo oo la xiriirtay in ay ka samata bixiyaan xaaladda ay ku jiraan. dadku marka ay guryahooda ay ku hakistaan waxaad dareemaysaa cudurro aad badan yihiin sida malaariyada iyo hergebka aad ugu badan cudurro olus ayaa haysa dadkumaadka aad bay u dalka in ay caawin dadka soo barakacay waxaanu leegaaro dadkaas wixii loo qaban karaa ayaa intooda badan waxay isaga kaceen deegaanka Elcadde oo weerar xooggan uu ku dhex maray xarakada Al-Shabaab iyo ciidanka dalka Kenya waxaana dadka intooda badan ay noqdeen kuwa saameyn ballaaran ay ku weeraradii halkaasi ka dhacay iyo qiimaha inkastoo qaar ka mid ah ay dib ugu laabteen hadda deegaanka Elcadde welina ay muujinayaan cabsi oo la xiriirta dhinaca amniga iyo soo kale inaysan geli karin baabuur ay dadka shacabkaasi ay ka taagan tahay xiisadii ciidamada Kenya ay muujinayaan feejari ah.